السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولالكين شمحيدين ولا ليال waxaan ku guda jirnay mowduucii aan ku balansanayn oo ah inaan ummaddeena wacyi gelino kuna wacyi gelino wanaagga sidaa darteed waxaan hore u soo sheegnay ama aan u soo ishaarnay waxa kala taga ilaahay inuusan ummaddiisa amrin ilaahay inuu amray inay noqdaan dad midooba ayaan hore u soo sheegnay sidaa darteed marka walaalayaal waxa weeye udubka ugu horeeyo ummaddu inay gacmaha isqabsato waxa ugu horeeyo oo horumar lagu gaari karo waa inay ummaddu noqdaan dad midaysan haddii marku dadku ay sidaa noqon waayaan oo ay noqdaan dad isqabsada oo kooxo noqda oo midnimadii iyo inay midoobaan suuragal noqon weyso maxaa imaanaya muxuuse ilaahay ka yidhi subxaanahu wa tacaala walaalayaal marka waxaan rabnaa daawo oo waxaan rabnaa daawada aan daaweynayno waxay tahay cudurka nahaya ayaan rabnaa oo dooda badan iyo colaytanka inaanu baabi'inno maxaan ku gaari karnaa ilaahay wuxuu leeyahay fii suurati alanfaal wa adiicu allaha wa rasuulahu awalan addoommadu waxaa laga rabaa kuwo ilaahay adeeca subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisa oo wixii ilaahay iyo rasuulkiisa ay meel dhigeen ama ay meel qutumiyaan kuwa oo maaragtay aanan ka leexanin samicnaa wa atacna baa laga rabaa marka awal horta walaalayaal waa inaan noqonnaa kuwa mudiiciina oo ilaahay subxaanahu wa tacaala adeeca iyo rasuulkiisa ilaahay marka wuxuu noo sheegay haddii ummaddu ay noqoto dad isqabsada maxaa ka dhalanaya ilaahay wuxuu leeyahay walaa tanaasacu ha doodininoo ha murminina oo marka aad murantaan oo isqaqabsataan fatafshaluu aad fashilantaan markaas oo ummaddu markay fashilanto maxaa imaanaysa midba midka kala fashiliya watadhaba riixukum marka ay tagto awooddiina iyo quwadiina isqabsashadu marka walaalayaal waxaa la leeyahay isku imaada oo gacmaha isqabsada oo xumaha zuuliya oo wanaagga isku raaca oo shuuro ku imaada waa inay ummaddu awooddoodii quwadooda aysan tegin wey ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu intaa ku daray wasbiruu sabra ina allaha maca asaabiriin kuwa saabiriinta ayuu alla macooda yahay in laysu sabro oo inta laga mudaynayo laysaga imaanayo maaragtay dadka muslixiintaa waa inay in badan sabar muujiyaan waxaan halkaa ku garanna marka doodaha iyo isqabsashadu iyo markaa colaytanku inuu keenayo awooddiida bulshadu inay tagto awooddii qabiilku inay tagto waxtarkii qabiilka inuu baaba'o ayaa meesha ka ogaanayna waan daaweynaynaa marka maxaan ku daaweynaynaa oo daawada lagu gaari karaa walaalayaal waxaanu leenahay iltazimuu biakhlaaqi alislaam laazima akhlaaqda islaamka maxaa yeele akhlaaqda islaamku waa la garanaya waa xan inaanan laysxamanin waa namiimada oon dadku dhexdeeda laysku dirin waa ilaahay subxaanahu wa tacaala xushmadda midba midka kale uu xushmeeyo cizada iyo karaamada dadka iyo tolka uu leeyahay la ilaaliyo biakhlaaqi alislaam wey iyo wa aadaabihi aadaabtiisa oo qofka uu qofna uusan caynin uu ku xadgudbin haddii qof wanaag iyo khayr asal iyo aasaas leh uu sheego iyadana waxaa laga rabaa inuu qofka uusan burinin waxaa intaas marka lagu kulmayaa waa maxay inuu ilaaliyo qofka uu ilaaliyo wa axkaamihi axkaamta islaamka axkaamtiisana inuu ilaaliyo taa marka maxay tahay maxay qabanaysaa fa hiya masdaru cizakum waa cizadiina taa fa hiya waxa weeye baanu nidhi masdar cizakum cizadiina meesha ay ka soo fulayso wey oo akhlaaqdii haddaad ilaalisaan islaamka aadaabtiisii islaam ilaalisaan axkaamtiisii ilaalisaan waa meeshay ka soo fulaysa cizadiina wey wa quwatikum iyo awooddiina meesha ay ka soo fulaysa wey soo ma jeedid wa sacaadatikum waxa weeye sacaadadiina iyo liibaantiinana waa meeshay ka soo fulaysa ummad liibaana oo midaysan oo quwad leh oo cizo leh waa meeshay ka imaanaysa wey fii dunyaakum adduunyadiina dhexdeeda iyo wa fii ukhraakum aakhiradiina intaba haddaba walaalayaal
hadday sidaa tahay inay sidaa tahay oo liibaantii lagu gaarayo maxaa caddaynayo adilo cad ah maxaa yeelay waxaanu soo sheegnay iltizaam inaanu noqonno biakhlaaq alislaam sidaa maxaa caddaynaya inaan markaas gaarayno inay tahay quwadii inay soo noqonayso cizadii ay imaanayso liibaantii ummaddu ay liibaanayso adduunyo iyo aakhiraba ay badbaadayaan adduunyaduna dad isku toosanoo awood iyo quwadle iyo shookale ay noqonayaan maxaa u daliila ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa munazalka fii suurati naxli ayuu kaga hadlay rabbi subxaanahu watacaala wuxuuna leeyahay man camila saalixan min dakarin ow unthaa qofka camal sanan wanaag sameeye man camila saalixan wax wanaagsan qofka camal falo min dakarin rag ah ow unthaa ama dhadig ah oo dumar ah ba u fiirso wahuwa mu'minun soo ma jeed kaa waa muumin oo hadduu yahay markaa wuxuu leeyahy ilahi subxaanahu wal xaala huwa asigana mu'minun oo muumin markaa uu noqdo soo ma jeedid dayib ilahi wuxuu leey man camila saalixan min dakarin ow unthaa wa huwa muuminun markaa uu muumin uu noqdo falanuxyiyannahu waxaanu noolaynaynaa xayaatan dayibatan maxaa muuminadu waa maxaa muuminnimadu waa inaanu akhlaaqdii islaamiga ilaalinaa aadaabtiisii ilaalinaa axkaamtiisii ilaalinaa haddaan sidaa ku sanano oo mu'miniin noqono mid ah oo walaalo ah aanu noqonno ayuu ilaahay tilmaamaya man camila saalixan qofka camal falaa wanaag oo min dakarin rag ah oo rag ah oo unthaa ama dhadiga wa huwa mu'minun walxaali huwa asigana mu'minun mu'min uu noqdo falanuxyiyannahu waxaanu noolaynaynaa xayaatan dayibatan maxalshaarika waa kaa xayaato wanaagsan ayaanu adduunyadii ku noolaynaynaa soo ma jeed walanajziyannahum waxaana ku abaalmarinaynaa kuwa ayaga ah aakhire markii la tago ajrahum ajrikooda waxaanu ku abaalmarinaynaa biaxsani maa shaykan u wanaagsan kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa camal fala halkaa waxaanu ku garanaa marka iltizaam haddaan samayno biakhlaaqi alislaam wa aadaabihi wa axkaamihi inay sidaan maaragtay ay noqonayno masdarkii meesha ka soo fulayso quwadeennu iyo cizadeennu inay tahay ayuu ilaahay caddaynaya subxaana wa tacaala man camila saalixan qofka camal fana wanaag sadaqadoo la bixiyo ummadoo loo turo wanaagoo laga shaqeeyo midnimadoo la ilaaliyo dadkoo meel la isugu keeno midba midka kale uu ka wen yahay uu sharfo haddaan camal wanaagsan la nimaadno min dakarin ow unthaa rag iyo dumar xaqiiqda waxaa weeye ragga iyo dumarku mid walbaba xumaanta way ka imaan kartaa hadday raggu ay wada wanaagsanaadoo dumarka ay noqdaan kuwo gooni u socda oo dhibaato iyo balaayo imaanayso ummaddu saasay noqonaysaa marka waxaa laga rabaa rag iyo dumarba inay noqdaan kuwo camal saalixa oo laazimaya akhlaaqdii islaamka inaanu noqonno ilaahay marka wuxuu yihi min dakarin ow unthaa wa huwa walxaala huwa mu'minun uu mu'min noqdo markii qofkii wixii xumaa iska dhaafo falanuxyiyannahu waxaanu noolaynaynaa xayaatan nolol dayibatan wanaagsan fi dunya waalaakhira walanajziyannahum waxaanu ku abaalmarinaynaa ajrahum ajirkooda biaxsani maa shaykan u wanaagsan kaanuu ahaan yacmaluuna kuwa camal fala marka walaalayaal waxaanu rabnaa marka daawada ugu horeyso inaanu ku bilaawno